madaxweyne xaaf oo ogolaaday in la qabto doorashada maamulkaasi galmudug kana baxayna heshiiskii dheerka qodob ka koobnaa uu la galay maamulkii ahlu sunna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo sheegay in doorashada galmudug lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb xildhibaano iyo senataro oo horkacay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare maanta ku wajahan magaalada Cadaado madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Guulid oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku guuldareysatay xalinta mushkiladaha wali ka aloosan galmudug taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya oo sheegay inuu bilowdo wajigii labaad ee dib u habeynta ciidanka dowladda Soomaaliya oo ka hadashay afgambigii dhicisoobay dalkaasi Ethiopia koox hubeysan oo ka tirsan macawisleyda oo sii daysay dad al-shabaab ay ku xirxireen deegaano hoostaga degmada Buulaburti ee gobolka Hiiraan wasiir Cawad oo wada hadalo laba geesood la yeeshay dhigiisa dalka Shiinaha iyo Erdogan oo ku guuldareystay mar kale doorashadii ku celiska ka dhacday Istanbul markale subax wanaagsan waa 24ka bisha June 2019 u diyaar garooba wararkaas oo dhan magacaygu waa Maxamed Abukar Dabaashe madaxweynaha galmudug ayaa ugu dambeyn waxa uu aqbalay in la qabto doorashada maamulkaasi 4 bisha July wuxuuna sidoo kale uu sheegay in guud ahaanba uu burburay heshiiskii Djibouti uu la soo galay maamulkii ahlu sunna asagoo sheegay in maamulkaas ay ka baxeen heshiisyadii sidoo kale waxa uu Axmed Ducaale Gil Xaaf uu sheegay in doorashada galmudugna lagu qaban doono magaalada Cadaado isla deegaanadaasi galmudug wararkii ugu dambeeyay ee qoraalkii xalay ka soo baxay madaxtooyada galmudug ee madaxweyne xaaf uu ku aqbalay doorashada iyo waliba heshiiskii burburay ee la sunna iyo maamulkaasba waxa soo koobaya Abduqaadir Jakarta qoraal uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Gil Xaaf isagoo ku sugan deegaano hoostaga magaalada Cadaado ee gobol Galgaduud ayuu ku shaaciyay inuu buray heshiiskii hore u dhaxmaray maamulkii gobolada dhexe ee la magacbaxay ahlu sunna wal jamaa iyo maamulka galmudug iyo inuu ogolaaday inay doorashada galmudug ay waqtigeeda ku dhacdo isagoo sheegay in laguna qabanayo magaalada Cadaado ee gobol Galgaduud sidoo kale madaxweyne xaaf war-saxaafeed ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxa uu ku sheegay inuu dhammaaday khilaafkii iyo midmadoogii ka dhex jiray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug kaas oo hakiyay howlihii shaqo ee maamulkaas qoraalka ka soo baxay madaxweyne xaaf xafiiskiisa ayaa waxa uu qornaa sida tan markii uu arkay qodobka 50aad farqadiisa 6aad 9aad iyo 10aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markii uu arkay axdi la'aanta ahlu sunna wal jamaa iyo si xurmad la'aan ay u muujiyeen markii uu arkay damac iyo sadbursiga aan dhamaanin ee ahlu sunna wal jamaa markii uu garawsaday ahmiyadda ay leedahay ilaalinta dastuurka iyo heshiisyada galmudug markuu la tashaday odayaashii waxgaradka beelaha deegaanada galmudug waxa uu xeeriyay madaxweyne xaaf inuu buray heshiiskii Djibouti ee galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa oo lagu saxiixay magaalada Muqdisho 6 bishii 12aad sanadkii 2017 labo in la qabto doorashada dowlad goboleedka galmudug 3 in dowlad goboleedka galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ka wada shaqeeyaan si loo qaban lahaa doorashada iyo dib u heshiisiinta 4 inay dhamaatay kala aragti duwanaanshihi u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo maamulka galmudug 5 in doorashada ka dhacdo caasimadda kumeel gaarka ah ee waliba maamulka galmudug ee magaalada Cadaado qodobka labaad iyadoo la eegayo qodobka koowaad ee kor ku xusan waxa buray gabi ahaan wax kasta oo heshiiska galmudug iyo ahlu sunna ka dhashay oo ay ka mid tahay 1 bedelida astaanta maamulka galmudug 2 bedelida dastuurka maamulkaas 3 dhismaha madaxa xukuumadda galmudug oo lala jeedo madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan 4 bedelida gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii maamulka galmudug oo khilaafkii ka dhashay madaxda sare ee sababtay in xilqaayis ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb iyo waliba magaalada Cadaado isla gobol Galgaduud 5 isku darka golaha baarlamaanka 6 dhismaha golihii wasiirada cusba ee markaasi uu magacaabay madaxweyne Axmed Ducaale Gil Xaaf si kastaba ahaatee qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Gil Xaaf ayaa mid u muuqda mid dib u celinaya maamulka galmudug isla markaana geenaya sidoo hore ka hor heshiiskii galmudug iyo ahlu sunna isla markaana uu fariisin ka sameeyay magaalada Cadaado ee gobolkaasi Galgaduud dhinaca kale isla warqad kale oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxa ay dawladdu ku shaacisay in doorashada galmudug ay dhici doonto 4 bisha July kana dhacayso magaalada Dhuusamareeb halkaas oo meesha labada dhinac ay isku khilaafsan yihiin
wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray qoraal uu ku shaaciyay in doorashada maamulkaasi galmudug ay ka dhici doonto magaalada Dhuusamareeb 4 bisha July ee sanadkan kuna egtahay muddo xileedka maamulka hadda jira. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa warkan ay soo saartay waxa uu imaanayaa xilli wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri oo ku sugaya magaalada Dhuusamareeb isla markaana heshiis uu la galay kooxda Al-Sunna. hase ahaatee madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo isna ku dhawaaqay doorashada galmudug waxa uu sheegay in doorashada ka dhici doonto magaalada Cadaado 4 bisha July isla sanadkan. meelaha hadda khilaafku ka jira ayaa ah in doorashada ay ka dhici doonto Cadaado iyo in lagu qabto Dhuusamareeb. warqad kale oo aan xaqiijinin sax ahaansheeda oo ka soo baxday xafiiska ama la tilmaamo inay ka soo baxday xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ee hadda Xaaf uu shaaciyay in meeshuu ka baxay Sheekh Shaakirna waxa uu ku shaaciyay in doorashada ka dhici doonto Cadaado. haddaba dhinaca kale madaxweynihii hore ee galmudugna Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay ku guuldareystay xalinta mushkiladaha wali ka aloosan deegaanada galmudug. waxauna sheegay in dowladdu xitaa ay sameey weyday in dadka reer galmudug ay isku madax banaanayso si ay u xalistaan arrimahooda. madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay ku guuldareystay xalinta mashaqadaha muddada dheer ka aloosan dowlad goboleedka galmudug. Masar Guuleed ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka shaqeynayso maamulkaas inay gacanta u geliso koox gaar ah isla markaana aan arintaasi sax ahayn sida Guuleed qoraalkiisa uu ku dhigay. waxaa shaki ku jirin in dowladda dhexe ay ku guuldareystay xalinta mashaqada muddada dheer ka aloosan dowlad goboleedka galmudug iyadoo aan reer galmudugna la isku dhaafin si arrimahooda u xalistaan ama dowladdu door fiican ay ka qaadato xalinta mushkiladaha ka jira ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed. Masar Guuleed oo si hadliyay ayaa yiri haatan waxaa muuqata in dowladda ay ka shaqeynayso sidii awoodda maamulkaasi ay gacanta u gelin lahayd koox gaar ah. arintaasi ma ahan wax sax ah ama mid sharci toona. ugu dambeyn waxa ugu baaqi dowladda in xaaladda ay cagaha u dhigto arinta maamulka galmudug si hoosna loo xaliyo wax walba ka jira halkaasi. isla wararka galmudug intaan ka bixinay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo senataro horkacay gudoomiye ku-xigeenka labaad aqalka sare maanta waxay ku wajaheen magaalada Cadaado waxaana la qorsheeyay isla magaaladaas isla maanta inuu gaaro madaxweynaha galmudug oo xalay ku hoyday deegaanka la yiraahdo Godi Labe oo 2 kiiloomitir u jira magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb u dhaxeeya. qorshaha waxa uu yahay in xubnahan senatarada oo horkacay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya deegaan ka soo jeeda galmudug maanta ay ku wada kulmaan magaalada Cadaado iyo waliba madaxweynaha galmudug oo asna ka soo ama bixi doona Godi Labe oo saldhig ka dhiga doona magaalada Cadaado. kulan xalay waqti badan qaatay oo ka dhacay magaalada Cadaado una dhaxiyay odayaal ka baxay magaaladaas oo gaaray Godi Labe iyo waliba madaxweyne Xaaf ayaa kulankaasi waqti badan qaatay ugu dambeynna xalay warqad ka soo baxday madaxtooyada galmudug gaaraan xafiiska madaxweyne Xaaf lagu shaaciyay in la qabanayo doorasho kana dhici doonto Cadaado taas oo ugu dambeynna la tilmaamayo in odayaasha dhaqanka Cadaado iyo waliba madaxweyne Xaaf ay ku heshiiyeen. magaalada Gaalkacyo dhanka koonfur waxaa ka imaanaya xubno horkacaya xildhibaanmaha Salaad iyo xildhibaano kale oo kamid ah senator Cabdi Qaybdiid oo halkaasi ku sugnaa maalmihii dambe wadana xalinta ee dadkii lagu laayay koonfurta Gaalkacyo ee koonfur galbeed ka soo jeeday. Muqdisho waxaa maanta ka baxaya xubno horkacaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka sare kuwaas oo inaan la xaqiijin ku wajaheen. haddaba dhinaca kale isla xubno ka tirsan baarlamaanka maamulkaas galmudug oo nala hadlay waxa ay dowladda Soomaaliya ku dhaleeciyeen in culays siyaasadeed iyo mid xooganba maamulka galmudug ay ku hayso. xubnahan waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya markan fargelinta maamulka ay ku hayso yahay mid muuqato sida oo noo sheegay xildhibaan Maxamuud Geelle. halkaas marka waxa taagan cadaadis ma aha waa dowladda dhexdeedii oo dhan u taraysaa cadaado wixii Dhuusamareeb ay uga suura galay cadaado waa uga suura galaya waxaan kaloo ii muuqata saadaashayda dowladda dhexe iyo qaabka ay wax u gaarayso iyo qaabka ay mashaakilaadka u xalliso iyo kulli markii aan daraasad ka sameeyey waxaa ii soo baxday inaanay habka ay ku gaari karaan waxa ay rabaan inaysan aqoonin ama sidii dadka iyagoo yaqaan adigu dabcan xubin kamid ah baarlamaanka galmudug ka mid tahay ma garwaaqsan tahay in waqtiga uu ilaaday lala joogo waqtigii doorasho ay ka dhicleed galmudug ma rumaysan waxaan rumaysanahay
marka wax la sameeyo مثلا markii dawlad dhexe ay burburto dad ay kala qaybsamaan gobol ay arintu ay aado alla kuwa soo diiday hadii marka dawladda la isku soo celiyo ayaa oo waxa marka heshiiskaas dhex maray labada dawladood yaa wuxuu suuro geliyay in uu keeno uu abuuro jawi iyo duruuf way adaa ku wata hadii ahlu sunna oo hadda ku soo biiray maamulka ay aqbalaan in doorasho la qabto idinku maxaad ku diidaysaan كلمة حتى يريد بها الباطل ما بغى شيء وكلمة يعني لكن باطل هو وحن كل شيء ليش اللي يراهنه قال كعيو وحن أقول الله هذا سوريات وح كدعي كله أو أحلي جان كدعي كله أو دولتي هذا كلام الحكومة زي كلام مثل تاعي أو دور شاهد مثله way kaas wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan xubnaha galmudug ee hadda waqtigooda gabagabada sii maray oo nala hadlin wararka la xiriira arrimaha galmudug halkaas aan kaga gudbinaa wax walba oo ku soo kordha xaaladda galmudug arrimaha siyaasadeed oo marba kale waa marba marka ka dambeeyay isbedelaya wajiye siyaasadeed yeelanaya wixii ku soo kordha barteena internetka ee radiorisala.com halkaas aan kugu soo daabici doonaa wax walba oo qusaya arrimaha galmudug wararkeena kale waxaa ku jira qayb ka taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya waxa uu sheegay in la gudageli doono wajiga labaad ee dib u habeynta ciidanka iyo waliba in la habeyn doono guud ahaanba ciidamada dawladda oo aan qaarkood wali aan diiwaan gashan Axmed Tifaya dhameystiraya taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu bilaabayaa wajiga labaad ee dib u habeynta ciidamada xooga dalka kadib markii wajigii koowaad uu si guul ah ku soo dhamaaday munaasabad lagu shaacinayay in ay bilaabanayso wajiga labaad ee dib u habeynta ciidamada oo ka dhacday taliska ururka 6aad ee ilaalada madaxtooyada waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre wajiga labaad ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa hubinta ciidamada goobihii lagu diiwaan geliyay ee dhammaan gobolada dalka Soomaaliya iyo qiimeyn guud oo lagu sameynayo tayada ciidamada si loogu saleeyo dhameystirka baahiyaha ciidanka taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa xukuumadda iyo taliskaba ku amaanay guusha ay ka soo hoyeen dib u habeynta ciidamada wajigii koowaad oo uu hirgalay diiwaangelinta tirakoobka iyo dejinta nidaamka mushaar bixinta ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo ciidamadu lagu siinayo xisaabaadkooda bangiyada taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed Indhaqarshe waxa uu saraakiisha ciidanka xooga dalka ku amray in ay si dhow ula shaqeeyaan saraakiisha ku howlan qorshaha dib u habeynta ciidamada ee booqanaya goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin hadda bilaabayna mashruuca qaybtiisa labaad dib u habeynta qaybtiisa labaad oo laba ujeeddo leh ujeedada ugu horeysa oo koowaad ay tahay in lagu qiimeeyo dadkii ciidankii la tirakoobay iyo meelihii la tirakoobay in la xaqiijiyo nin walba in laga helo meeshii lagu tirakoobay unless uu uga maqan yahay sababo mucayana ciidanku in dagaal ku jira sababo mucayana oo la ogyahay taliyo uu ogyahay uu ku maqan yahay in marka nin walba laga helo meeshiisa qaybta labaad in la tirakoobo ama la xaqiijiyo ama la ogaado xaaladda ciidanka degan meeshaas uu ku sugan yahay xero la-aanta ciidanku xero la-aan bay u badan yihiin teenooyin way waxay degan yihiin marka in la xaqiijiyo sidii xero loogu samayn lahaa sidii loogu kala horumarin lahaa xeryaha taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay ka go'an tahay ku guuleysiga dib u habeynta ciidamada qalabka sida oo qayb ka ah halbeegyada ugu muhiimsan ee tubta amniga iyo cadaaladda dowladda federaalkan waxay cambaareysay isku daygii afgambi ee dhicisoobay ee ka dhacay gobolka Amxaarida dowladda federaalka Soomaaliya waxay si kulul u cambaareysay afgambigii dhicisoobay gobolka Amxaarida ee Ethiopia kaas oo lagu qarijiyay mas'uuliyiin iyo saraakiil badan oo Ethiopia ka tirsan qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ayaa tacsi waxa lagu diray ehlada dadkii ku geeriyooday weerarkii ka dhacay halkaas waxaana Abiy Ahmed iyo xubnaha kaleba dowladda Soomaaliya kaga tacsiyay afgambigii dhicisoobay weerar ka dhacay magaalada la yiraahdo Daahir oo ah magaalo ay degan dadka Amxaarida ayaa waxa lagu dilay madaxweynaha ismaamulkaas sidoo kalena waxa la dhaawacay xubno kale saraakiil
qabiil dambe warkan ay isla soo gaarna koox hubeysan oo ka tirsan macawisle kana dhisan degmada la yiraahdo Buulaburti gobolka Hiiraan waxay xalay halkaas dagaal kula galeen deegaanaha hoosaga xubno oo kamid ah ururka Al-Shabaab oo halkaas liga military ku lahaa kooxdan waxay sheegeen in ugu dambeyn dagaalka ay kaga guuleysan Al-Shabaab ayna sii dayeen dad badan oo maxaabiis ahaan Al-Shabaab halka ay ku xirxireen gaadiid badan oo ah kuwa ku safra wadadaasna Al-Shabaab halka ay ku xanimeen ay fasaxeen mid kamid ah saraakiisha horkacaysa kooxda macawisleyda ayaa sidaas noo sheegay walaalo ma sheegi karo oo adiga ma dhigi karo koob laba ma dhigi karo laakiin waa ka badnaayeen aan ku dhaafay 30 ama 40 u dhaxeeyay ma garad ma shabaab halka dadka ku xiray oo xabsi ugu jireen dad waxay ama beeraley ah dad deegaanka waxa waa dad beeraley dad xoolo dhaqato waa dad isku jireen halkaas aan howlgalaan ku qabnay targetka wuxuu ahay in baabuurta lagu kala haysto aan ka fasaxno talidooda agta marino ilaahay ka sokana waa noo suurta gashay alxamdulilah awoodda allah iskale marka walaalo halkaas waxaan ka dhacdaan ku dhahay cashir laan la miilayaan ma garad walaalo anaga dadka deegaankan ku dhahay oo dadka deegaanka ayaa arshadooda soo gaartay adiga shalay gelin dambo ayay baabuurta dhamaay calashaan halkaas isku wada keeneen marka lacag canshuur oo tandhaaf ayaa baabuur walba marka ugu dambeyn Erdogan markii uu ku guuldareysay doorashadii ku caliska ee Istanbul ka dhacday waxa uuna hadda walaac badan laga muujinaya mustaqbalkiisa siyaasadeed ee la xiriira arrimaha Turkiga horeen waxa uu shaaciyay ninkii ku guuleystay doorashadaas ka dhacda Istanbul inuu yahay hogaamiyaha kale ee Turkiga xisbiga ka arrimaha Turkiga ee la yiraahdo AKP ayaa markale ku guuldareystay ama guuldaro kala kulmay doorashadii ku caliska ahayd ee ka dhacday caasimadda dalkaas Istanbul musharaxa xisbiga mucaaradka guuleystay ayay doorashada guusha ku raacday 50% ayuu helay codadka inta badan la tiriyay doorashada ka dhacday bishii Maaj ee isla sanadkan ayuu guul la yaab leh ka gaaray musharaxan hadda guuleystay waxaana taas ka soo horjeestay xisbiga talada haya ee Turkiga ugu dambeynna waxa la isku raacay in markale lagu celiyo ugu dambeynna markale ayaa lagu guuleystay xisbiga talada haya doorashada ka dhacday Istanbul rasaarihii hore ee dalkaasi Turkiga Benjamin Netanyahu ayaa doorashada lagaga adkaaday madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu u hambaliyay musharaxa mucaaradka ah ee guusha ay raacday ee guuleystay bajkiisa dhanka Twitter-ka waxa uu ku soo qoray madaxweyne Erdogan hambaliyo u jeedinaya hogaamiyaha guuleystay ee codadka ugu badan helay caasimadda natiijada doorashada Istanbul ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay caqabad kale oo ku soo korortay siyaasadda Erdogan asagoo hore u yiri cidii ku guuleysatay Istanbul waxay ku guuleysatay maamulka dalkaas Turkiga sarkaalkan ku guusha ee gaaray ee natiijada doorashada waxa uu sheegay in astaan bilow ah cusub ay tahay dalkaas Turkiga iyo waliba caasimadda wuxuuna intaa uu raaciyay in albaab cusub uu furmay caasimadda cadaalad sinaan lagu wada doono howsha dhaxarta caasimadda